kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsin oo aan hadahan oo kale idin soo taban jirnay waa 21 bisha July 2019 qodobada ugu door korona ee warkeena waxa kamid ah madaxweyne Putin oo la ogaaday inuu ka dambeeyo safarka madaxweyne Biixi ee dalka Guinea Axmed Madoobe oo qaaday tallaabo ka dhan ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Puntland oo jawaab ka bixisay dalabka madaxweyne Farmaajo mid kamid ah hal-abuurada Soomaaliland ugu caansan oo naqdiyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray ujeedka wafdiga madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ee Muqdisho maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaare Khayre iyo guddiga cusub ee uu soo magacaabay daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu door koron ee warkeena fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelka subscribe saaro gambalelkana daaro si ay ku soo gaaraan wax walba aan soo galino haatan warkii officer wargeyska The Indian Ocean ayaa baahiyay qormo ku saabsan socdaalkii madaxweyne Muuse Biixi uu ku tagay caasimadda dalka Guinea ee Conakry kaasi oo sida uu sheegay uu ku lug lahaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin The Indian Ocean ayaa sheegay in madaxweyne Biixi markii uu la kulmay madaxweynaha Guinea Alpha Conde ay isla soo qaadeen xiriir cusub oo Soomaaliland la yeelato dalka Ruushka taasi oo uu dalbaday madaxweyne Putin wargeyska ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in Biixi iyo Alpha ay isla qaateen in Soomaaliland saldhig military siiso dalka Ruushka isagoona ku xusay in Alpha Conde uu madaxweyne Biixi ku dhiirigeliyay inuu xiriir dhow la yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu intaasi raaciyay wargeysku in Mr. Song Chan oo ah wakiilka dawladda China oo qaabilsan arrimaha Afrika sanadii 2012 ilaa 2016 uu sheegay inuu hadda yahay la taliyaha madaxweynaha Ruushka ee arrimaha Afrika oo muddooyinka u dambeeyay xiriir isdaba joog la lahaa madaxweyne Biixi si uu ugu qalqaalay inuu aqbalay in Ruushku saldhig military ku yeesho Soomaaliland Ruushka ayaa hore isugu dayay inuu saldhigyo ka sameeyo Suudaan Eritrea iyo Djibouti balse hadda wuxuu u muuqdaa inuu Soomaaliland u soo guurayo oo qorshanayo inuu saldhig ka sameeyo deegaanka Saylac sida wargeysku sheegay madaxweyne Alpha Conde ayaa dawladda Itoobiya u tilmaamay in dalalka Senegal iyo Niger ay taageersan yihiin qadiyadda Soomaaliland oo ay taageeri doonaan mooshin dan u ah qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland wargeyska ayaa waxa kale oo tilmaamay in dalalkani ay dadaaladoodan siyaasadeed iyo militariga uga dan leeyihiin fursado ganacsi oo iyaga u muuqda wuxuu intaas ku diray wargeysku in madaxweyne Biixi inta uu socdaalka ku joogay dalka Guinea uu booqday dhowr xarumood oo kuwa macdanta ah ugu dambeyntiina waxa wargeysku soo hadal qaaday in dawladda Soomaaliya ay xiriirka u jirtay dalka Guinea kadib markii uu dalkaas u soo dhaweyn iyo qaabilaad u sameeyay madaxweyne Biixi wararka naga soo gaaray madaxtooyada Kismaayo ayaa sheegaya in madaxweyne Axmed Madoobe uu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ka dhan ah ciidamada dawladda federaalka Colonel Cabdirashiid Macalin Gaas oo afyeenka hore ee ciidamada xoogga dalka ee Jubbooyinka ayaa si kulul uga hadlay dhaqdhaqaaqada iyo ficilada uu Axmed Madoobe ka wada deegaanada Jubbaland xilli oo loo sii dhawaanay waqtiga loo asteeyay doorashada xilka madaxtinimo ee Jubbaland Corneelka oo wareysi siiyay idaacadda Simba ayaa sheegay in hore magaalada Kismaayo looga soo celiyay saraakiil ay dirtay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya loona diiday inay gudaha u galaan magaalada Corneelka ayaa caburiska lagu hayay ciidamadaasi ku eedeeyay xubno uu magacaabay oo sheegay inay qaraabo la yihiin Axmed Madoobe dhanka kalena Cabdirashiid Macalin Gaas ayaa madaxda dawlad goboleedka Jubbaland ku eedeeyay nacayb ka dhan calanka Soomaaliya isagoo sheegay in calanka Soomaaliya dartiis loo dilay dad muwaadiniin ah isla markaana calanka Soomaaliya lagu gubay magaalada Kismaayo 3 jeer Corneelka ayaa taa bedelkeeda ku xusay in calanka Kenya oo si nabadgelyo ah kaga badbaaday magaalada wuxuuna taas ku micinayay in deegaanada Jubbaland looga armay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo aan laga maamulin magaalada Kismaayo oo si ku meel gaar ah magaalada madaxweynaha Jubbaland madaxtooyada Puntland ayaa waxay ka jawaabtay codsigii madaxweynaha dalka Soomaaliya ee ku aadanaa in la sii daayo shakhsiyaad ku xiran magaalada Boosaaso Maxamuud Xasan Cismaan xeer ilaaliyaha guud ee dawladda Puntland oo warbaahinta kula hadlayay Garowe ayaa sheegay in xubnahaasi loo soo eedeeyay isla markaana ay baaritaan ku bilaabeen dadka eedeysanayaasha oo Garowe iyo Boosaaso ku xiran madaxweyne ma amri in la soo xiro waxa la soo qabtay inay ku xadgudbeen shuruucda u degan Puntland ayuu yiri Maxamuud isagoo hadalkiisa sii wata ayuu carabka ku adkeeyay in eedeymaha loo haysto raggaasi la soo amarsiiyay hanaanka saxda ah ee garsoorka isagoo xusay inay haatan baaritaan ku socoto dadka hadda ka hadlayay muwaadiniin la soo xiray ma aqaan ujeedada ay ka leeyihiin ma joogno jasiiratul waaqwaaq dalka sharcigu leeyahay horeyna dad waa loo soo eedeyn jiray waana la soo xiri jiray mudane Maxamuud ayaa intaasi raaciyay kiiska mar uu taagan yahay baaris ilaa iyo kiiska qofka lagu helo ama lagu waayo cid soo faragelin karta ma jiro ama tallaabo ka bixin karta oo aanan ka ahayn hay'adaha sharciga xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ayaa intaasi ku diray
madaxweyne dani baan sii dayn karin madaxweyne farmaajo baan sii dayn karin ra-iisul wasaaraha ayaan sii dayn karin sharci baa soo xiray sharcigaana sii dayn karaa jawaabta puntland ayaa timid xilli goor sii horreysay qoraal lagu daawacay bogga villa soomaaliya lagu sheegay in madaxweyne farmaajo dalbaday in 3 nin oo ku xiran boosaaso xorriyadooda loogu celiyo si shuruud la'aan ah maxaa looga hadlay kulankii khayre iyo guddiga cusub ee la magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa caasimada dowlad goboleedka galmudug kula hadlay guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo ay dhowaan magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalku kulankan oo ay goobjoog ka ahayeen wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ganacsiga xildhibaanada labada gole ka tirsan iyo madaxa fulinta galmudug ayaa looga hadlay shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug iyo dardargelinta shaqada guddiga u taala iyo kamari dhalinta dadaalada la isugu keenayo dhammaan reer galmudug si ay uga tashadaan aayaha iyo dhismahooda ra-iisul wasaaraha ayaa siyaasiyiinta iyo dhammaan reer bulshada galmudug ugu baaqay in guddiga ay kala shaqeeyaan gudashada mas-uuliyadda ka saaran shirweynaha dib u heshiisiinta mudane khayre iyo wafdiga oo hogaaminaya ayaa muddo 1 bil ku dhow waxay galmudug u joogaan dhismaha galmudug sal adag oo ka shaqeysa danaha reer galmudug kana qayb qaadata horumarka dalka abwaanka xasan daahir ismaaciil weersame oo kamid ah halabuurada caanka ah ee reer somalilan ayaa si adag u dhaleelay xukuumadda somalilan ee uu hogaaminayo biixi abwaan weersame ayaa sheegay in xukuumadda muuse biixi ay ka maran tahay milgaha tala wadaaga isagoona ka dhawaajiyay in musuq maasuqa ka jira xukuumaddan uu marayo heerkii ugu sarreysay weersame ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in madaxtooyada somalilan aysan u jeedinba waxyaabaha jira oo ay ku hadaaqayso sharci sarreeya iyo horaa loo soconaya abwaan xasan daahir ismaaciil weersame ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook kaga hadlay wuxuuna yidhi xukuumadda madaxweyne muuse biixi waa mid aad u liidata oo ka maran milgaha tala wadaaga wuxuu intaasi ku daray heerkii musuquna sidaan maan moodayn buu marayaa balse madaxtooyada cajalad baa u daaran ay ka baxayso hees ay ka mid yihiin horaa loo soconaya ee sharcigaa sarreeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda midowga afrika iyo urur goboleedka igada oo hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika sida ay sheegtay villa soomaaliya ujeedka safarka wafdigan ayaa ku salaysan qiimeynta xaaladda amni iyo dhaqaale ee dalka iyaga oo ku guda jira diyaarinta cilmi baaris ku saabsan iskaashiga amniga iyo isdhexgalka dhaqaale ee dalalka kulaala badda cas iyo gacanka cadmeen madaxweyne Mbeki iyo wafdigiisa ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya soo dhaweynta diiran iyo martiqaadka wanaagsan ee loo fidiyay iyagoona bogaadiyay dadaalada dib u heshiisiineed ee laga wada dalka kobaca dhaqaalaha iyo horumarka dhanka siyaasadda madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay wafdigan dadaalada ay ka qayb qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xoojinta amniga kobcinta iskaashiga dhaqaale iyo xal u helista caqabadaha siyaasadeed ee dalalka Geeska Afrika booqashada wafdigan ayaa qaadanaysa muddo 2 maalmood ah waxayna kulamo la qaadan doonaan mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda iyo xeelleerayaasha Soomaaliyeed ee arrimaha amniga iyo siyaasadda kulankan waxaa goobjoog ka ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fuursade wasiirka ka tirsan xukuumadda wakiilka gaarka ah ee qaramada midowga u qaabil Soomaaliya iyo la taliyaasha madaxweynaha wadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena inta aan warkaan iyo war kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo